Dahab Tower waa dhismaha qaadan doono xilliga in soo aadan dhismaha ugu dheer ee Soomaaliya, kaasoo ah mid aad loo casriyeeyay, muuqaalkiisuna aad u wacan yahay, kaasoona ka qayb qaadan doono bilicda iyo horumarka, sidoo kale ganacsiga magaalada. Dahab Tower waxaa mas'uul ka ah taabgelintiisa iyo dhismihiisa shirkadda Dahabshiil Group, waxaana loo xil saaray dhisidda mas'uuliyadda company laga leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa la qorsheeyay Dahab Tower inuu noqdo 22 floor ama 22 dabaq, kuwaasoo la filanayo in la dhammeeyo 2 sano oo u dhiganta 24 bilood, ugu badnaan 2 sano iyo bar. Dabaqan waxaa la qiyaasaa inuu gaarayo qarashka ku baxayo $20 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Dabaqan wuxuu ku yaalaa ama locationkiisa uu yahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Dabaqan 22 floor ka kooban waxa uu isugu jiraa amaba uu ka kooban yahay shopping malls aad loo casriyeeyay oo la mid ah sida kuwa dunida horumartay. Waxaa kale uu ka kooban yahay xafiisyo shaqo, sidoo kale wuxuu ka kooban yahay floors loogu talagalay deegaan ahaan ama in la dego, kuwaasoo ayagana aad loo nidaamiyay amaba loo qurxiyay. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay Dahab Tower suuqyo casri ah oo ay u dhameystiran yihiin adeeg walba oo looga baahnay suuq. Waxaa kaloo intaasi dheer in uu leeyahay goobihii cibaadada sida masaajidka, sidoo kale inuu leeyahay goobaha carruurtu ay ku ciyaarto, sidoo kale laga helayo Dahab Tower moolashii hooliskii loogu talagalay xafladaha, iyo sidoo kale kuwa loogu talagalay shirarka loogu talagalay. Dahab Tower sidoo kale waxyaalaha uu uga duwan yahay dhismayaasha kale ee dhaadheer ee magaalada laga taago waxaa ka mid ah inuu yahay amaba loo design gareeyay inuu yahay smart building, yacni waa dhisme aad ula jaan qaadayo teknolojiyadda casriga ah ee dunidu maanta ay ku tillaabsatay. Waxyaalaha uu leeyahay Dahab Tower waxaa ka mid ah high performance glazing oo ah yacni muraayado aad yacni u wanaagsan oo dunida horumartay isticmaasho, kuwaasoo loogu talagalay in yacni ay iska difaacaan amaba ay la tacaamulaan hadba isbeddelka cimilada, oo haddii kuleel badan ama qabow badan uu jiro intaba yacni saameyn aysan ku yeelan shaqaalaha ama dadka ku nool meeshaas. Sidoo kale wuxuu leeyahay energy ku filan iyo biyo ku filan. Sidoo kale wuxuu leeyahay all powered biometric and facial recognition oo ah system technology kaasoo sahlayo in la aqoonsado ama inuu garto qofka wajigiisa, kadibna uu soo gudbiyo xogta qofkaas si sahlan. Sidoo kale wuxuu leeyahay Dahab Tower kaamirooyin 4K ah, kuwaasoo aad u ogaan karo yacni amaba u duubin karo yacni waxa ka socda dhismahaas. Sidoo kale wuxuu leeyahay baakin baabuurta loogu talagalay oo ku dhowaad qaadi karo ilaa iyo 150 gawaari ah, waana automatic oo macnaha asaga ismaamulaya, macnaha kaliya baabuurkaada dhiganaysa asaga geenayo parking lot loogu talagalay. Dahab Tower waa dhisme aad loo casriyeeyay, qurux ahaan iyo qalab ahaanba aad looga taxadiray quality-giisa, wuxuuna ka mid noqon doonaa dabaqyada ka qayb qaata in caasimadu ay la tartanto dhigeeda kale ee caasimadaha adduunka.